dal kasta wuxuu leeyahay hadimooyin iyo taariikho xusuustoodu ay xanuun badan tahay haddana waxa mustaqbalkiisa qaabeeyay sida uu dalku taariikhdiisii hore wax uga qaatay tusaalaha ugu weynna waa dalka maanta looga cabsida qabo hogaaminta dunida dhaqaale ahaanna xawaaraha sare ku socda ee Shiinaha waxa soo maray 100 sano oo ay u bixiyeen 100kii sano ee dulaysiga dawladda shisheeye ayaa burburiyay boqortooyadii weynayd ee Shiinaha dhulkoodii kala qaybsaday khasab ku sarqaamiyay shacabkii beeraleyda ahaa ee Shiinaha kadibna ku qasbay inay saxiixaan heshiisiyo ay uga tanaasulayaan qaybo muhiim ah oo dhulkooda ka mid ah waji kasta oo foolxun oo uu gumaysigu leeyahay ayaana ku socday dalkan 100 sano oo xiriir ah adkaysi iyo dagaallo adag kadibna waxay ku guuleysteen inay ka gudbaan dhulkooda xoreeyaan maantana waa dal dhaqaale ahaan awood ahaan iyo dhan kastaba kaga hormaray dalalkii mugdiga iyo taariikhda madow khasabka ku geliyay muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagaynaa sooyaalka cajiibka ah ee dalkan iyo sida uu uga tallaabsaday taariikhdii madoobayd ee ay reer galbeedku badeen magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waabari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta inteenan u gelin muuqaalkeenna maanta waxaynu gaarnay 5,000,000 saaxiib oo uu kulmiyay channelkeennan waxaan rabaa inaan mid idinkaga mahadceliyo garab istaaggiina joogtada ah oo alle ka sokow sabab u ahaa inaynu soo gaarno meesha aynu hadda marayno insha Allah sidii caadadeenna ahayd mar walba waxaynu yool iyo hadaf ka dhiganaynaa si horumarinta xogaha aan idinla wadaagno sidoo kale munaasabadan awgeed waxaan qiimo dhimis 50% ah ku sameeyay labadeeda koorso ee kala ah qaabka muuqaalada loo edit gareeyo iyo siraha muuqaal samaynta oo ka mid ah koorsooyinka ku jira website-keenna Waabari Academy koorsada Premier Pro qiimaheedu wuxuu ahaa $13 laakiin muddo 7 maalmood ah waxaad ku iibsan kartaa $6 oo kaliya sidoo kale koorsadeenna siraha muuqaal samaynta iyadana qiimaheedu wuxuu ahaa $9 haddana waxaad ku heli kartaa $4 oo kaliya qiimo dhimistan waxay ku eg tahay 20 bishan lixaad haddaba ka faa'iidaysi wacan aynu u galno muuqaalkeenna dhammaadka qarnigii 19aad iyo bilowga kan 20aad waxaa dalka Shiinaha soo maray dhacdooyin xiriir ahaa oo isugu jiray fashil maamul dagaallo gudaha ah iyo duulaanno kaga imaanayay dalal kala duwan oo ay ugu horeeyaan Ingiriiska iyo Japan dhacdada ugu weyn uguna urkutaalada badan waa dagaalkii maandooriyaha oo Ingiriisku doonayay inuu qasab maandooriyaha loo yaqaano opiumta ama afyoonka uu iibgeeyo suuqyada Shiinaha si uu ula dagaalamo wax soo saarka beeraleyda Shiinaha oo tartan suuqeed gelisay wax soo saarkii Hindiya oo uu xilliga gumaysan jiray Ingiriisku sanadkii 1839kii boqorkii Shiinaha oo dareemay habacsanaan gashay wax soo saarka iyo saameyn xoogan oo ay bulshada ku reebtay isticmaalka daroogadan ayaa soo bixiyay amar adag oo mamnuucaya ka ganacsiga iyo adeegsiga maandooriyaha opiumta xukun dil ahna lagu fulinayo qofkii jabiya sharcigaas maandooriyahan waxa uu xilliga ahaa ganacsiga ugu badan ee uu Ingiriisku u dhoofiyo Shiinaha sharcigan cusubna aad ayuu u carageliyay boqortooyada Ingiriiska waxayna qaadatay go'aan ah in dagaal ay ku qaado Shiinaha laguna khasbo inuu boqorku ka laabto go'aankiisa dagaal adag oo dhowr bilood socday ayuu Ingiriisku si xun ugu jabiyay ciidankii Shiinaha waxana lagu qasbay boqorkii dalkaas inuu saxiixo heshiisyo faa'iido u ahaa Ingiriiska sida in ganacsiga maandooriyuhu uu helo dekado u gooni ah oo uu ka soo dego iyo in la ballaariyo goobaha iyo suuqyada lagu iibiyo arrinta intaas ka weynna waxay ahayd in Shiinuhu jasiiradda Hong Kong ku wareejiyay Ingiriiska waana halka ay taariikhyahanadu ku tilmaamaan bilowga 100 sano oo la dulaysanayay dadka Shiinaha kadib guuldaradii dagaalkii maandooriyaha waxaa Shiinaha duulaan ku soo qaaday Japan oo muddo dheerba ay colaad kala dhaxaysay doonaysayna inay ka faa'iidaystaan tabardarida Shiinaha boqortooyadii Japan waxay dagaalkan ka lahayd 2 ujeedo oo kala ahaa inay ugu horeyn meesha ka saarto saamaynta Shiinuhu ku lahaa Korea iyo inay la wareegto jasiiradda Taiwan ugu horeynna waxay Japan kaalmo iyo sanad ciidan u dirtay jabhado ka dagaalamayay gudaha Shiinaha si looga mashquuliyo dagaalka ay ku qaadayso Korea markii ay ka soo jeesatay dhanka Koreana waxay u soo jihaysay ciidankeedii sidii ay gudaha ugu soo gali lahaayeen dhulka Shiinaha 2 sano oo dagaalo toos ah iyo kuwo goosgoos ahba kadib Japan
waxay ku guulaysatay inay la wareegto Taiwan iyo qaybo ka mid ah dhulweynaha Shiinaha sida gobolka Dalian, waxaana lagu qasbay Shiinaha inuu saxiixo heshiisyo dhigaya ku wareejinta Taiwan ee Japan iyo aqoonsiga dawlad hoosaad uu Japan ka dhisay Korea. intaas loogama harin si loo qaato hanti badan oo ay lahayd boqortooyadii Qin ee xilligaa Shiinaha maamulaysay, ayaa waxaa lagu furay mawjado mucaarad ah iyo dibadbaxyo rabshado wata oo mid ka mida uu ku dhintay diblomaasi Jarmal ahaa oo abaabulka qayb ka ahaa. Jarmalka ayaa dilka diblomaasigan ku sifeeyey shirqool, wuxuuna isku soo aadiyey sanadkii 1901 xulafo 8 dal ah oo kala ahaa Maraykanka, Ingiriiska, Jaban, Faransiiska, Austria-Hungary, Jarmalka, Talyaaniga iyo Ruushka si ciqaab loo marsiiyo Shiinaha. xulafadan oo ku andacoonaysay in ay taageerayaan koox ka soo horjeeday boqorka, sidoo kalena ay ku raad joogaan dadkii dilay dibloomaasigii Jarmalka ahaa, ayaa dagaal toos ah ku soo qaaday dhulweynaha Shiinaha. waxay la wareegeen magaalooyin badan oo ay ku jirto caasimaddii Beijing. boqorkii Shiinahana wuxuu u soo baxsaday dhul buuraley ah oo ku yaala Shiinaha si uu gabaad uga helo. dalalkan duulaanka soo qaaday oo ahaa dhaqaale doon ayaa boqorka u soo bandhigay in ay xukunkiisa u soo celinayaan, ciidankana ka saarayaan dhulkiisa, balse laga rabo inuu saxiixo heshiis ay qodobadiisa ka mid ahaayeen bixinta 18,000 oo tan oo qalin ah oo ay ku bixiyaan muddo 39 sano ah, iyo in khasaarihii dagaalka uu si toos ah raaligelin uga bixiyo boqorka Shiinuhu una tago boqorka Jaban iyo kan Jarmalka si raaligelinta looga aqbalo. dhammaan magaalooyinka waaweynna marka laga rabo magaalada caasimadda ah ee Beijing aysan imaan karin ciidan hubaysan oo boqortooyada ka socda. muddadan 100 sano ah ee u dhaxaysay 1839 ilaa 1939 waxay taariikhda Shiinaha kaga qoran tahay baal madow, guuldarrooyin isxiga, dagaallo gudaha iyo bannaanka ka imaanaya dhowr dawladood oo kala qaybsaday dhulka Shiinaha sida Ingiriiska oo qaatay Hong Kong, Bortuqiiska oo la wareegay jasiiradda Macau, Ruushka oo isaguna qaatay qaybo badan oo waqooyiga ah, iyo Jaban oo dagaal kula wareegay gobolka Dalian iyo jasiiradda Taiwan. dagaalada gudaha ah oo dhinac walba ka socday, hogaamiye kooxeediyo uu midba dal gaar ah taageero ka helayay, dawlad aan awood badan lahayn, macaluul iyo gaajo dadka Shiinaha ka dhigtay mid lagu maadsado, meel walbana lagu arko iyaga oo safaf dhaadheer raashin ugu jira, iyo tan ugu xanuunka badan oo ah in saamayntii Shiinaha ee dunidu ay noqotay mid aan wax qiime ah ku fadhin oo magacoodana lagu suntay dal fashilmay. sanadkii 1949 markii xisbiga Shiyuuciga ah uu talada la wareegay, wuxuu ku dhawaaqay dhalashada nidaam cusub oo uu Shiinuhu qaatay oo ahayd in laga guuray habkii boqortooyada loona guuray nidaam jamhuuriyad ah, iyo sidoo kale dhammaadka 100 sano ee dulaysiga ahaa. kadib guuldaradii Jaban ee dagaalkii labaadna waxay Shiinaha siisay fursad ay kaga nastaan duulaanadii joogtada ahaa ee Jaban ee qarniyada ahaa cadowgooda koobaad. wixii wakhtigaa ka dambeeyey, in kasta oo Shiinaha ay soo mareen mahadhooyin dhowr ah sida jabka dagaalkii Korea, abaaro iyo tirada dadka dalka iyo awoodda dawladda oo isku dheelitirkoodu aad u kala hooseeyey, haddana dhammaan caqabadahan way ka gudbeen. 40kii sano ee u dambeysay, Shiinuhu wuxuu caalamka tusay inuu si weyn uga soo gudbay xaaladdii uu ku sugnaa. wuxuu isku diyaariyey sidii uu ku noqon lahaa dal dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba caalamka ka muuqda, jihaynta dhaqaalaha furan, xogsaaridda wax soo saarka iyo xirfad u abuuridda dadkiisa ayaana laga hormariyey siyaasadaha mudnaanta koobaad la siiyey, taas oo keentay in maanta wax soo saarkooda laga helo dal kasta oo caalamka ah. dhinaca kalena waxa uu noqday awood ciidan oo aan si fudud lagu degdegi karin. guusha ugu weyn ee siyaasadeed ee Shiinuhu gaarayna waxay noqotay inuu ka mid noqday 5 dal ee kursiga joogtada ah iyo codka veto ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobay. codkiisuna uu yahay mid uu wuxuu doono ku diido. shacabka iyo dawladda Shiinaha marnaba ma inkiraan, meeshana kama saaraan jiritaanka wakhtigan la soo maray, waxayna ku tilmaamaan inuu ahaa mid baray adkaysi iyo isku tashi. waana taariikh la xuso mar kasta oo aan la qarin. dalka Shiinaha in kasta oo uu ka jiro nidaam dawli ah oo adag, haddana maanta wuxuu dhaqaale ahaan, awood ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba kaga xoogan yahay dawladihii sida fudud 100 sano ka hor ku soo weerari jiray dhulkiisa. marka ay dagaalka ku jabiyaanna waxa ay doonaan ka saxiixan jiray
dadkiisa oo wakhtiga ahaa bulsho sabool ah oo ku tiirsan keliya wax soo saarka beeraha, maanta oo kuwa ugu wax soo saarka badan dalalka dunida oo idil, dhan kastana way kaga horeeyaan caalamka, ka bilow gawaadhida ilaa mashiinada ugu yaryar ee nolol maalmeedka loo adeegsado. waa dal laga xushmeeyo saaxadda siyaasadda iyo dhaqaalaha, wuxuuna kaalinta labaad kaga jiraa dalalka ugu awoodda badan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba adduunka oo dhan.